السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa xaggan inaan ka sheego walaalahayo saaka war bay soo gaaray ina ma aragtay talashkii Djibouti ay soo fartay fariin ay tiri ninka amba abtiyaaladii baatina amba fiidiyoyada ka joojiya amba anaka noo soo gudba marka dareeraayga xaggan jooga la soo hadlo ciidamada aaminkeeda Soomaaliland baa la soo hadlo ku yiri waa inaad ninkaadii 5 cishaan u qabanay si ay fiidiyoyadiisu iyo facebookiisa u xiro iyo afkiisa u xiro 5 cish haddii 5 cisho dhaafto anaku Djibouti baan u dhiibanaa maadaama waa dad walaaleen oo xiriir naga dhaxeeyo okay waan gartay marka maanta anu waxaan doonayaa fariin amba baaq inaan u diro shacabka Somaliland inaan u diro aqalada iyo suldaanada Somaliland aan u diro dadkii abtiyaalada iyo haaye Isaaq guud ahaan aan baaq u diro oo welina khaasatan habarawal oo Sacad Muuse aqaladooda iyo suldaanadooda inaan baaq u diro marka wixii saxafiyow wixii xaq u dirirow wixii igu xirxirano wixii daawado wixii taageero fiidiyoga u gudbi amba codka muuqaalkay maanta soo duway u gudbi toogu horeysa anagu maanta wadankayga Djibouti waxaan uga soo cararay waa aamin daro waa nolol la'aan waa gumeysi waa kufsi waa dhicis waa corruption waa kaba la isku qaado amaan jirin oo la is amaano waxa oo dhan waxaan ugu yimid waa nafteeda badbaasha waa nin xaq iskaga hadlaan hoy oo iska sheega anigayga macal in kasto insaan aan hoon dambi aan galo marka maanta waadana aragteen wixii dhacay kacaankii kacay waxa ugu sabab ahaa Fuaad nin suuli la agseexiyo oo laga soo duubo inay waxa caalamkii iyo dadkiiba weyn walaalahayna Soomaaliland la joogno way ka yaabeen way u dul qaadi kari waayeen marka aniga maanta waxaad ogsoonaatay ani maanta dawladda Djibouti waa taas khaasatan safaaradda Djibouti baa la igu sheegay inay runtahay inay been tahay ma kala garanayo laakiin aniga dadii dhoobayay intay la soo hadleen igeeli fiidiyoyada xid facebookaga xid ahallin waxay noqonaysaa inaan khasiin noqdo xaqii Sheekh Cabdiraxmaan waxay noqonaysaa inaan bilaan dareen noqdo marka abtiyaalayaal khaasatan waxa la leeyahay beeshaysa guud ahaan meesha joogto caalamku wixii dhageysanay wixii Somaliland baan joogo abtiyaaladaal inikan magan hay haddii laynaga kay inikoo ay nila joogo haddii laysidaa laga qaato inikay waji xumo iyo sharaf darnimo inagu noqoni wax aan koofsaday iyo waxaan dhacay iyo waxaan geystay male taliska Djibouti haystana nin shacab qof walo reer Somaliland oo ay ka qarsan tahay in gumeysigu ka jiro Djibouti ma jirto laakiin maanta waxaa soo gaaray Djibouti xilli ay doonayso inay xoreyso iyo Somaliland oo guud ahaan wax walba danteeda gaarka ka raacayso markii excellent la abuuray Isaaqa xuduudda dawladda Djibouti ay ka tiri xuduudda uma furayno ayay u tageen ugaaskii ciisi ba Xasan Guleed ka yiri duco amba habaar dooro oo u fur xuduudada oo ciidankana intan qaata marka haddii maanta ajaarnimo isku eegaysiin taliskan meesha ay gacalnimo bal aniga intii ciisanimo abaal la isku galay ana ii gala maanta oo inaan ammaan aan dareemo weeyaan inaan wadankiina anigoo jooga shacabka Djibouti waa nooc walba ciisoon ma hadday soo cararaan oo inagu soo ammaan galaan soo dhaweysta waayo waxaad soo mareyseen ayay maanta soo marayaan maanta meeshan Somaliland waa meel ay shacabkii iyo suldaanadii aqaladu ay power leeyihiin anaku suldaanadeedii waa la sumeeyay aqaladeedii waa la sumeeyo irbad suna ku socota marka shacabkiina waa laga adeegiyo hubiyo waxa loo isticmaalaya wax walba marka aniga abtiyaaladay ma la leeyahay abti dhaxdiina anoo ku dhex jira inaan ku dhex baahan inaan ku absoonin inikan la joogaabti inikiina cadaaladiin iyo ragnimo ku soo doontay baan aniguna rabaa inay shacabka Djibouti guud ahaan ay xoroobaan marka alayga gaarsiyo codka wassalaamu